الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله kasoo qaybgalayaasha mudanayaal iyo marwooyinba saraakiisha wasaaradda saxaafadda waan wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclay marka ugu horreysa inaan runtii mar labaad idiin mahad celiyo oo idinka mahad celiyo kasoo qayb gasheen munaasabaddan muhiimka ah waxaan kaloo jeclay inaan halkan uga mahad celiyo waaxda soo qaban qaabisay shirkan amba munaasabaddan isugu nimi waxaan doonaya inaan ku yaro ekaado oo keliya miisaaniyaddu waxay tahay iyo waxyaabaha saameynta ku leh habraaca miisaaniyadda loo sameynayo iyo sharciyadeeda iyo mudnaanaheeda waxaan u dayn doonaa saraakiisha horta marka ugu horeysa miisaaniyaddu sideedaba waa qorshe maaliyadeed cid kastoo adeeg samaysaa waxay leedahay miisaaniyad amba markaa iyadoo qoraala oo diyaarsan ha hayso amba yaanay hayn miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay laba dhinac waa dakhli iyo kharash dakhliga iyo kharashku haddii ay isleeg yihiin miisaaniyadda waxa la yidhaha waxa weeye waa miisaaniyad isu dheeli tiran haddii kharashku ka badan yahay dakhliga waa miisaaniyad kala dhantaalan haddii dakhligu ka badan yahay kharashka sida kale waa miisaaniyad dheeraad leh innaka miisaaniyaddeenu waa miisaaniyad balansi lah isu dheeli tiran maadaamaan ciidana aanayna siinin kab miisaaniyadeed miisaaniyaddeenna waxyaabo ka midana aynan u soo amaahan deyn u qaadanin wixii inaku dadka aynu ka qaadno shicibkeenna ayuun baynu ku maamulnaa kharashkeennana marka waa miisaan isu dheeli tiran weeye marka miisaaniyadda maxaa saameyn ku leh intay leeg tahay ha yaraato ha badnaato maxaa yareeyey maxaa badnaysiiyey haddii aan sila dul taagno miisaaniyadda waxaa badnaysiiya amba yareeya kow xajmiga dhaqaaluhu intuu leegyahay markuu dhaqaaluhu yar yahayba miisaaniyadduna way yaraanaysa markuu dhaqaaluhu badan yahayna miisaaniyaddu way badnaanaysa laba waxay ku xidhan tahay siyaasadda dowladda iminka waddamada afrika waddanka la yidhaho botswana 50% dhaqaalaha qaranka soo gala dowladda gacanta ku haysa oo qaadata dabcan way ugu adeegtaa dadka laakiin halkii doolar ee waddanka soo galaba amba waddanku soo saaraba 35 senti baa dowladda ku dhacay khasnadeeda waddamada kale afrika intaa way ka yaryaryihiin markii la isku celceliyo waddamada afrika 15% ayay dowladuhu mas-uul ka yihiin wax soo saarka guud ee qaranka innaka somalilan waxaa dowladda gacanteeda soo gala 9% ilaa 10% wax soo saarka guud ee dowladda ee qaranka marka runtii waynu intay dowladdu ay mas-uulka ay ka tahay dhaqaalaheennu aad bay u yartahay marka loo eego xitaa waddamada afrika waddamada haru maray guud ahaan marka la isku celceliyo dowladdu waxay ka mas-uul tahay 40% shilinkii dalka soo galaba 60 sentina ciddii markaa tabcatay ayaa iska leh 40na dowladdaa leh senti dabcan markaynu dibadaha u baxno infrastructureka aynu had iyo jeer majiiranno amba jidad ha ahaadaan amba airportya ha ahaadaan amba dhismayaal kale ha ahaadaane waxay dowladdu ay ku samayso u suurtogeliyey
cashuurta badan ay qaado. innaka wax badani waxay nooga dayacan yihiin cashuurtayna qaadno aan nagu filayn. haddii aan u yaro daadogo waxyaabaha kale ee saamaynta ku leh ka sokow guud ahaan xajmiga dhaqaalaha, waxaa ka mid a siyaasadda cashuureed ee dowladda. dowladaha qaar waxay leeyihiin siyaasad cashuureed oo sare. taa micnaheedu waxa weeye waxay qaadaan cashuur badan bay ka qaadaan amba ganacsatada ama dadka shaqaalaha ee cashuur bixiyayaasha ah. waddamada qaarna in yar bay ka qaadaan. anugu shakhsiyan waxaan qabaa inta optimumka ah, boqolleyda optimumka ah ee dowladdu ay ku fidin karto adeegyada waajibku ka saaran yahay shicibkuna u baahan yahay inay tahay ilaa 25%, boqolkiiba 30. dabcan miisaaniyadda xajmigeedu laftigeedu wuxuu ku xidhan yahay marba dadaalka la geliyo iyo shicibku siday mataqaanaa ugu ajiibaan waajibaadka xeerka cashuuraadku uu saarayo inay iska bixiyaan cashuurta iyo deganaanshaha dhaqaale laftigiisa. hadduu dhaqaaluhu wanaagsan yahay cashuurtuna way fiicantay. haddii dadku cashuurta bixiyaan miisaaniyadduna way badnaanaysaa. haddii dowladdu ay samayso dadaal miisaaniyadduna way badnaanaysaa. marka waxyaabahaasoo dhan waxyaaba saamaynta ku leh ee la tixgeliyo marka la diyaarinayo qorshaha miisaaniyadda. waxaa kaloo miisaaniyadda saamayn ku leh waxyaabaha ka dhacaya gobolka iyo caalamka guud ahaanba. marka waxyaabaha masaa'ibkee dabiiciga ah ee abaartu ay ka mid tahay saameyn weyn bay ku leedahay dhaqaalaheenna oo kale, miisaaniyadeenna oo kale, khaasatan maadaama innaka dhaqaalaheenna tiir dhexaadkiisu yahay xoolo. haddii biyo iyo baad la waayo, haddii xooluhu leedaan amba dhintaan, haddii la barakaco, miisaaniyaddeenna saameyn weyn bay ku leedahay. sidoo kale dagaalada iyo iska horimaadka gobolka ka socda amba caalamkaba ka socda iyaga laftigeedu waxay leedahay miisaan bay leedahay iyo saameyn culus. dagaalka imika ka dhex socda ruushka iyo Ukraine innaka saameyn weyn bay nagu yeeshay. waayo qamadiga waxaan ka soo iibsan jiray Ukraine, sunflowertina waxaan ka soo iibsan jiray Ukraine amba si toos amba si dadban. dagaalku markuu dhacay ee qamadigii bakhaarada yeelay Ukraine la soo saari kari waayey wuxuu nagu yeeshay saameyn innakoo keliya ma ahda caalamka o dhanba. sidoo kale xaaladda dhaqaale ee caalam iyada laftigeedu saameyn bay nagu leedahay iyo xaaladda ganacsiba. innaku waxaynu dhoofsinaa xoolaha. sacuudigu hadduu inaga xayiro amba uu ku soo rogo maxaan idhahdaa xayiraad xoolaha aynu dhoofinay sacuudiga taga, miisaaniyaddeenna si weyn buu u saameynayaa. iminka sanadkan xadhiggaa waa laynaga furay, xoolo badan baa inaga dhoofay. xoolaha inaga dhoofay miisaaniyaddeenna waxbay ku darayaan. waxaa kaloo la midoo saameyn ku leh amba saameyn ku lahaa miisaaniyadihii sanadadii u dambeeyey oo ta sanadkan ay ku jirto, ta soo socotaana ku jirto safmarkii COVID-19. waxayna runtii dhacday isu socod waa. waxaa la waayey maraakiibtii qaadi jirtay alaabta, khaasatan maraakiibtii qaadi jirtay konteynerada. konteynerkii berigii hore China kaga iman jiray dekedda berbera ku iman jiray 3,000 wuxuu marayaa 13,000 oo kale. taa laftigeedu saameyn ayay nagu leedahay. waayo dakhligeennu wuxuu ka yimaadaa miisaaniyaddu boqolkiiba 77 wuxuu ka yimaadaa dekedaha. haddii ganacsiga caalamka wax ku yimaadaan oo qorshihii aan ku talagalnay maxaan idhahdaa wax iska bedelaan oo wixii aan ku talagalnay inoo yimaadaan inoo iman waayaan, saameyn weyn buu ku leeyahay miisaaniyadda. marka amuurahaas waxay amuuraha miisaaniyadda ku leh
saamaynta ee la tixgeliyo waxyaabaha sanadkan soo socda ee 2023 aanu tixgelinay miisaaniyadda waxaa ka mid ah odoroska kobaca dhaqaalaheenu wuxuu noqon doono sanadkan soo socda ee 2023 sicir bararku wuxuu noqon doono sidii wax isaga bedeli doonaan waxaynu dibadda ka keenno amba importska iyo sidii wax isaga bedeli doonaan waxaynu dhoofino amba exportska waxaanu odorosnay qaacidooyin baa jira la isticmaalo waxaanu odorosnay in sanadka soo socda dhaqaaluhu kori doono 4%. Inflationku inuu noqon doono 7%. In waxyaabaha aynu dibadda ka keenna ay hoos u dhici doonaan 3%. Exportskeena in 12% ay kor u kici doonaan. taasi waxa weeye waa odoroska sanadka 2022 maaha waayo sanadkii weli muu dhammaanin weli waynu ku guda jiraa 5 bilood bay noo hadhay sanadka soo socda 2023 isagoo odoroska kobaca dhaqaaluhu waxa weeye 5%, sicir bararku waa 6.5%. waxyaabaha aynu dibadda ka soo dhoofin doono waxaan rajaynaynaa 6% inay kor u kacaan waxyaabaha aynu dhoofinaynaa 4%. sidoo kale sanadka ka sii dambeeya 2024 qorshuhu waxa weeyaan odorosku in 5% uu kordhi doono dhaqaalaheenu sideedaba sanadadii u dambeeyey dhaqaalaheenu wuxuu koraa marka la isku celceliyo ilaa 5%. inflationku ama sicir bararku waxaa loo odorosay inuu noqon doono ilaa 4%. waxyaabaynu soo dhoofinaa inay kori doonaan 6%. exportskuna inay kori doonaan 14%. kuwaas waa waxyaabaha la filayo inay ku yimaadaan kobaca dhaqaalaheenna amba sicir bararkeenna amba ganacsigeenna. sidoo kale haddii aynu eegno caalamka xaaladiisa laftigiisa dhaqaale waxaa loo odorosay sanadkan aynu ku jira 2022 in guud ahaan dhaqaalaha caalamku uu kori doono 4.4%. inflationkuna uu noqon doono 8.6%. sanadka soo socda sidoo kale in GDP-ga guud ahaan caalamka uu kori doono 3.6%. inflationkuna uu noqon doono 6.2%. sanadka 2024 koritaanka dhaqaaluhu uu noqon doono 3%. inflationkuna 3.8%. had iyo jeer dhaqaaluhu marna wuu koraa marna wuu soo degaa waa cycle buu ayuu raacaa. iminka cycleka waxaynu maraynaa xilligii uu sicir bararku kacsanaa ee ascaartu ay kacsanayd. ascaartu markay kacdo waxaa bata oo daba jooga wax soo saarku markuu batana sicirku hoos buu u dhacay. marka waxaan rajaynaynaa sanadka 2024 laga bilaabo in wax waliba ay hoos soo degaan halka imika kor uga kaceen. sanadkan soo socda waxyaabaha mudnaanta aanu siinay waxaa ka mid a biyaha iyo deegaanka iyo wax soo saarka iyo waxbarashada. afartaa shay waa afar shay runtii aad iyo aad u muhiima. waxaa la isla gartay maadaama iminka ay joogto ay noqotay abaaruhu ay joogto noqdeen oo ay soo noqnoqonayaan berigii hore wax laga yaabaa 5 sannadoodba mar amba 10 sannadoodba mar in abaar la arki jiray. iminka abaartiiba waxay noqotay caadi wax sanadle u soo noqonaya roobkiiba wuxuu noqday wax qeyr caadiya. marka inaynan sugin sanad walbaba intii abaari nagu habsanayso ee dadkeena iyo xoolaheena u dhimanayaan biyo la'aan ee laga tabaabushaysto oo ahmiyadda koowaad la siiyo. sidoo kale deegaanka maadaama xoolo dhaqato aynu nahay in isaga laftigeeda ahmiyad gaara ama mudnaan gaara la siiyo
arrimaha deegaanka. wax soo saarku aad buu muhiim u yahay waayo boqolkiiba 85 waxaynu quudanno dibadda ka yimaadaan. waxay noo soo baxday iminka markii colaade ay dhaceen caalamka ka dhaceen in cid waliba waxeedii xidhatay. innaka waxyaabaha ugu muhiimsan aynu dibadda ka keenno bariiska iyo sonkorta gaar ahaan waxay nooga yimaadaan waddanka India. India way joojisay waxay dhoofin jirtay kootay u samaysay. sidoo kale daqiiqdu waxay nooga iman jirtay Masar qamadiguna wuxuu ka iman jiray Ukraine iyaguna way xidheen. marka waxa soo baxday xaalad ah in cid waliba cuntada ay noqotay strategic weapon inay noqotay oo cid waliba waxeedii xidhatay. marka waxaynu u baahannahay inaynu runtii fadhiga ka kacno oo bedelo ku tiirsannahay wax cid kale beerteen oo inaku aynu wax beeranno. sidaa awgeed miisaaniyadda sanadka soo socda waxaa culayska la saaray wax soo saarka. educationka laftigiisa sidoo kale mudnaan baa la siiyey waayo educationku aad iyo aad buu muhiim u yahay. iminka kolle waa la socotaa maan u malaynayaa Hargeysa waxaa ka buuxa dad fara badan oo ajnabiya oo shaqo walba qabta ta ugu sarreysa ilaa ta ugu hooseysa. dadka ajnabiga iskama imanin dad qaxootiya maaha dadkeennaa keenay waayo waxay leeyihiin xirfado aynaan lahayn inaku xirfadooda lagu keenay. marka waxaynu u baahanayn dhallinyaradeenna inaynu baro xirfadahaynu u baahanay si aynu uga maaranno sidaynu uga maarano dadkan ajnabiga ah ee noo imanaya. iminka ganacsigii cuntada waxaad moodeen la wareegayaan Yamantii iyo Bakistaaniyiintii iyo Bengoligii iyo Ethiopiaankii. shaqooyinka ugu badan aynu qaban jireen waxaa makhaadin ka shaqayn jiray cunta inta badan iyo dukaan. waxaasna saasoo kala dhismaha injineerkii kii maxay dhahdaayeen wastaadka ahaa kii kuuliga ahaa kii rinjila ahaa kii balambarka ahaa waa wada ajnabi amba ajnabi u badan yihin. marka waxaynu u baahanay dhallinyaradan runtii aan dee baro. dhallinyaradu eed ma laha waayo maynaan barin xirfadaha maynaan sino maynaan barin marka inaynu barro ay miisaankiisa. caafimaadka laftigiisu runtii waa waxa la siiyey isna miisaankiisa ayaa la siiyey. marka intaa waxaan kaga baxayaa guud ahaan miisaaniyadda iyo waxyaabaha saameeya tafaasiisha waxaan u daynayaa saraakiishaan u daynayaa khaasatan waxda miisaaniyadda. aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ciidanka qarankiyo